السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن والله يا الواد سلامينا ميلاد كتشوكتان أدون كدعلدي سوا ولكن حبيب فارح waxaan ku sugannahay guri kamida guriyaha ay ku nool yihiin dadyooga walaalaheena ehelkeena xigtadeena oo u baahan taageeradeena iyo garabgalkeena magaalada Garowe. waxaan maanta soo booqanay Sakariye Maxamed Maxamuud oo ah nin dhalinyarada u jeedaan ninkaas isaga aad aragtaan waxa uu kamid yahay dadka Ilaahay doortay oo deegaankan ama ku nool magaaladan nin dhalinyaro oo rajo lahaa han lahaa waalidkii soo koriyeen soo barbaariyeen meel fiican soo gaarsiiyeen wax la soo baray waqti badan la geliyay waxa dhashay walaasheen hodan faarax ayaa dhashay oo aad u jeedaan oo dhinaciisa fadhida ninkaani dugsi sare ayuu dhameeyay markii uu jaamacadii galayna waxa weeye sanad koowaad meelahan ku dhigtay kadibna magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayuu wareegay markii uu jaamacadii dhameeyay ayuu xanuunsaday hal mar ayaa madaxa laga galay markii madaxa laga galay sidaad caadiga ay ogtihiin de waalid walba waxa way waxay isku dayaan inay u helaan dabiib ama dawo ilmahooda si uu uga sii wato hankiisii himiladiisii meesheedii walaalahodan oo amaamo ku nool magaalada Garowe laakiin financially ama dhaqaale ahaan aan kari karin inay meelo badan iyo goobo badan wiilkeeda geyso waxay isku dayday inay socoto waxay ka bilowday cusbitaalka weyn ee magaalada Garowe waxay soo joogtay bariyo noogu sheegtay 6 ilaa 8 bari kadibna qoladii cusbitaalku waa u dayriyeen markay u dayriyeen waa iska soo baxday gurigeeda ay timid hoygan ay ku nooshahay ma hoy ay iyadu leedahay waxa ka dhintay aabaheed oo geeriyooday 10 bari ka hor 25 bari ka hor waxay kula nooshahay dad badan oo walaalaheeda waa guri ka dhaxeeya qowmiyada ama qabiilo dhan meel iyada u gooniya ama iyadu gaar maaha kadibna markay guriga ku soo noqotay gabdhihii walaalaheeda waxa ay kula taliyeen in ay ku daydo in Itoobiya meelaha la geeyo maadaama aysan dhaqaale haysan ay tigidho iyo viisayaal iyo dayuurada ku raacdo waxa ay samaysay ninkaas sidaa u dhiban ayay waxay isku dayday inay dayuurad dhulka mariso kadibna waxa waaya sidaas ay yeeshay Itoobiya la geeyay Itoobiya markii la geeyana dhaqaatiirtii meesha joogay waxay u sheegeen in ay TB maskaxdu oo ninka odayga ahi oo qabo hadee maadaama aysan dhaqaale badan haysan wax badan aysan qaban karinin waxa ay ku soo noqotay deegaankeedii iyo meeshii ay joogtay dawooyinkii ay u soo qoreen oo TB madaxa ugu qoreen waa la siiyaa waxa ninkani sidan noqday oo xaaladiisu ay totally ka soo dartay sanad ka hor bishan maanta ay ku jirtay October kala hore 19 sanadkaas ayuu halka yaala gabadhaas iyo habaryartiisna ay la daala dhacayeen sidoo kale waxay isku dayday walaalo in ay waxay isku dayday inay tolojanis kale ama dhakhtar kale oo ka duwan kii markii hore ay la hadashay ay ninka isaga u geyso waxay isku dayday inay dhaqaatiir halkan joogto u tagto iyagiina wadadii ayay mareen sidii ayayna ula hadleen oo wax ugu sheegeen oo yiraahdaan waxba ninkan odaga laga maqan karo halkaas yaala waa nin dhalinyaro waa 25 jir qoys walba oo Soomaaliyeed waxa gurigooda jooga wiil ama gabar 25 sano jirta waxay leeyihiin rajo waxay qabaan nolol waxay u baahan yihiin in ay ama guursadaan ama ay shaqo helaan oo waalidkood wax taraan Sakariye ma helin jaaniska isaga hooyadiisna wataas ag fadhida waa wax aad iyo aad looga xanuunsado waa wax qofka damiirka leh ama insaanka uu dhibsado way aad iyo aad baan uga xanuunsanaynaa waxa kaliya oon karno waxa weeye inaanu la wadaagno bulshooyinka Soomaaliyeed walaalayaal waxaan ka dalbaynaa videoga share garaysaan si uu gaaro walaalaheen dal iyo dibad ilmaha yarkaahi aad iyo aad ayuu dhiban yahay
hooyadiisna waad u jeedaa habaryartiisna waa taag fadhida wax dhaqaala ay haystaan haba yaraatee ma jirto halkaasay fadhiyaan ilaahay unbay sugaya subxaana qaadiraha waxaa innaga laynaga rabaa marka aase islaam ahaan soomaali ahaan inaynu isu damqanno inaynu isu naxariisanno inaan garabka isu dabcino waxa keliya on kari karno innaga waxa weeye inaynu dhaqaale ku taageerno walaasheen oo aynu nidhaahno walaal macaan hadda ilaahay kuu dhib yareeyo haddii aynaan sidaa yeelin oo aynaan garabka isu dabcin oo aynaan isu naxariisan oo aynaan wax isu qabanna hadda ilaahay subxaana watacaala koonka taa ku tasarrufa waxa weye caafimaadka la wada haysan maayo caafimaadka la wada qabi maayo dadku sidaa wada aha wiilkaa yarkaa oo walaalayaal 10 bilood ka hor sida dhaamay rajo lahaa in uu wax barto jaamacadda dhameeyo shaqaysto hooyadiis wax taro carruur kale miyaa leedahay baad leedahay mise ugu weyn hadde ilaahay waa ka qabtay walaalayaal laakiin wuxuu leeyahay rajo waxaa ka dhici karta inaynu inagu garab galno jaanis siino dhaqaalo usoo dirno waddanka ka saarno ma ogtahay wadamada afrikaanku dhakhaatiir aysan haysan baa dibadaha jira wadamada turkiga ama india ama bakistan haddii ninka odagaa la geeyo waxaa suurtagala inuu helo daryeel marka annaga waxaana laga rabaa soomaali ahaan inaan garabka u dabcino inaan u naxariisano inaan ilaahay ugu dhowaano walaalayaal caafimaadka gurigaaga walaasha iyo walaalka iyo hooyadaa hadday caafimaad qabaan waxaa murugaysan oo dhiban qoys kaloo soomaaliyeed hooyadaan la mid ah halkaa fadhida wiil walaalkaa la mid ah halkaa yaala 10 bilood ka hor fiicnaa laakiin masiibo rabbaaniya u timid waxaa suurtagal ah haddii qofka la dabiibo haddii la dhakhtariyo haddii meel la geeyo waxa weeye oo ilaahay oofsado waa ku qanci karnaa laakiin hadduu dayac garow u dhex yaal oo waxba la tarin de haddee waxaynagu soo noqonaya way inagii inaynu garab galno ninkaas tigid u raadino dhakhaatiir la raadino meel wanaagsan geyno la baaro wax ayuu ku noqon karaa waxaan idinka codsanayaa numberka meesha aan ku qoray haddaad soomaaliya joogtaan iyo haddaad waddanka dibaddiisa joogtaanba inaad isticmaashaan waa 2529 eber 736 2422 2529 eber 736 2422 25290-736-2422 numberka isaga hooyadiisa iska leh waxaan rabaa numberka in la isticmaalo haddaa xawaaladaha wax ku soo diraysaan ama dahabshiil ama amal ama muxuu ahaayey toole xawaaladaha kale soomaalidu isticmaasho amaana meel walba oo aad wax ugu soo diri kartaan taajka oo kale waxa weeye waa degdeg waa fas weeyaan oo markiiba lacagta marka la soo diro akoonka hooyadiisa ku soo dhacayaa waxa weeyaan walaalayaal marka numberka isaga inay isticmaashaan ayaa idinka dalbayna waxaan si xushmad la idinkaga codsanaynaa sidii wanaagsanayd ood mar horeba noo aaminteen oo noola shaqaynayseen oo garab noo siiseen hadday ahaan lahayd markaanu sooba ka shaqaynaynay haddaanay ahaan lahayd markaanu beledweyne joognay hadday ahayd markaanu qarne ka shaqaynaynay hadday ahayd macaawinaha kale oon soomaalida dhexdeeda ka qabanaynay sidii aad noo karaamayseen noo weynayseen oo noo sharafteen oo kale inaad wiilkan isagaana ugu damqataan sidaan u dhaantaan hooyadiis aad bay u calool xun tahay aad bay u niyad xun tahay waa hooyo soomaaliyeed nin walbaana wuxuu jeclaan lahaa gurigiisa qabowga iyo khayrka ka jiraahi in muxuu ahaayey toole ay ku bulaalaan oo nolosha ay haystaan lifetime laakiin haddii inagoo dhaqaala haysana ilmaha yarkaa aynu waxa weeyaan wax ka xasadno ama hooyada aan la murugoon weyno halkaa dhiban haddee waxa weeyaan dad islaam oo wanaagsan oo fiican noqon mayno wey waxaan aad iyo aad u dalbanayaa waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in sida ugu dhaqsaha badan qof walba waxaa heli kartid $1 Soomaaliya gudaheeda 2, 3, 4 wax walba oo dheer nolol maalmeedkaaga galabtay ama caawa in aad sadaqaysatid meeshii wanaagaas iyo khayrka ku galana sadaqa iyo liibaan baa ku galaysa ilaahayna ugu dhawaanaysid qoyskaana aad murugada iyo tiirayada kaga faydaysid waxa weeyaan badal khayr qabaan ku rajaynaynaa waxaan si xushmad kaaga codsanaynaa inaadan xasidin inaadan ka jeclaysan sakariye lacag akoonkaaga ku jirta ama bankigaaga ama gurigaaga
waxa weeyaan wax walbo awooddaad u tahay qof dhalinyara haddaad tahay haddaad qof meel dhexaada tahay haddaad ganacsad tahay culummada khayrka badan oo Soomaaliyeed waxaan ka dalbanaynaa oo waliba Puntland caanka ku ah waxtarka iyo khayrka inay gurigan isaga soo booqdaan inay qoyskan u yimaadaan gurigoodu wuxuu ka soo horjeedaa cusbitaalka weyn ee Sixa ee magaalada Garowe wadada loo yaqaano Al-Nasr ama loogu magac daray Allah u naxariistee adeer Sheekh Cabdisalaam wadadaas ayuu gurigu ku yaalaa wuxuu ka soo horjeedaa dhakhtarka weyn ee Sixa ama Wolf Vision ayuu ka soo horjeedaa marka dhuqa culimada maxaa ay toole ama nugaal joogta Garowe ama in general Puntland joogta waxaan dalbanayaa waxa weeyaan waxaynu ku ballanay oo isku ballansanay inaynu khayr ka wada shaqeyno garab istaagno marka in qoyskan isaga la soo booqdo oo la garab istaago oo dhaqaale la siiyo oo loo yimaado oo lala xanuunsado baan idinkaga dalbaya taas waa culimada maxaa ganacsatada magaaladan joogta iyo siyaasiyiinta dadka xildhibaanada hadda kuwa wasiirada kuwa dawladda u shaqeeya qof walba oo reer Puntland oo ka dhow dad iyo kale Soomaalida oo Garowe ku sugan waxaan si xushmad loogu codsanayaa inay qoyskan soo booqdaan inay halkaan yimaadaan inay ilmaha yar ka arkaan especially wasaaradda waxbarashada oo waxa weeyaan udub dhaxaad u ah howlaha waxbarashada iyo khayrka oo hadda aan ka xusi kara halkaan wasiir Cabdullaahi waa maqan yahay laakiin wasiir Bashiir iyo agaasime maxaa ahayd Maxamed Cali Faarax labaduba waa joogaan maxaa ahayd tolo dhalo guddoonka waxbarashada gobolka Nugaal qof walba ehel u ah waxbarasho kuwa private sector ka jooga jaamacadaha madaxa bannaan ama iskuulada goosida khaaska loo leeyahay waxa weeyaan inay garab galaan oo ardayda iyagu ay hadda hayaan ay uu ninkan odayga role model u noqdo kaas ilmaha yarka markuu waxbarasho ku jiro hadii wax si ka noqdaan oo loo tagin oo la garab istaagin kuwa hadda waxbarashada ku jira ahaan jabaya marka si ay u ogaadaan inay tirsan yihiin xisaabsan yihiin bahda waxbarashada gobolka Nugaal kuwa Puntland jooga iyo kuwa banaankaba waxaan ka dalbaynaa inay la soo xiriiraan Sakariya hooyadiis u yimaadaan oo gurigooda ku soo booqdaan qofka in loo yimaado garabka loo dabciyo loo naxariisto waxa weeyaan wanaag badan oo khayriya ku jira dhimashada iyo geerida alla og Sakariya iyo Xabiib Faarax qof horbaxaya alla garanaya laakiin inaga waxa la yiraahdaa rabaa dadaal halkaan xanuun baa jira ilmo yar oo halka iska yaala oo aan hadlayn oo waxa weeye garbaha looga jiro oo marna la jiifinayo marna la fariisinayo ninkaas 25 jir buu ahaa sanad ka hor isaga qubaysanaya la bisanaya barafuun isku shubayay maanta xafaayada laga bedelay xasha Allah ilaahay daacadiisna ma marka waxa weeye in qadarta lagu qarxan loo baahan yahay waxaadan jeclaysteen adigu waxaadan rabin adigu inay kugu dhacdo waxaadan gurigaaga la rabin ehelkaaga xigtadaada la rabin qaraabadaada la rabin hala jeclaan Sakariya hooyadiis oo odaya hadda dalka dibadiisa joogtaana soo caawiya soo garab gala lacag soo dira maamadaas garab istaaga ilmaha yarka inay dhakhtar la tagto oo wadanka kala baxdo garab ku siin ترتيبه معايا qofkii waalida garan kara xanuunka uu leeyahay ilmahaagu xanuunsan especially dumarku ma sii jiraan hooyooyinkeen aad bay u dhiban yihiin waxa laga yaabaa Sakariya bis manoliya sida ay qoftaasi ugu hagar baxayso u dul taaganta oo xanuunsanayso inuu sanahay baa suurtagal ah aabayaasha Soomaalida xoogoodana guriga dumarka ka xiga qoftaan iyada dhiban iyada korkeeda lagu jaajeex iyada 9 bilood soo siday iyada foolatay ma garanaysaa markii ay waxtarkiisa rabtay baa walaalayaal oo sidaa noqday marka aan taageerno hala tacaasho dhakhaatiir ha u tagto wadanka kala baxdo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa laga yaabaa ilmadeena inuu ku daweeyo dhaqaalaha aad u soo dirtaan inuu garab u noqdo inay bari ka maalin tiraado waxaan ahay qof wanaagsan oo Soomaali ka dhashay laakiin iyadoo Garowe joogta oo dad islaam ku wareegsan yihiin oo maamul iyo magac haysata oo Soomaali ka dhalatay
deegaankay doogaana ka joogeen waddanka ani soomaalida respect aan waayaa ma kala jeclay ka muqdisho joogiya ka kismaayo joogiya ka beledweyne joogiya ka garowe dad wanaagsan oo khayr badan baan u arkaa dad isu naxariistaan u arkaa dad garabka isu dabciyaan u arkaa kuwa dibaddana kuma sii jiraan ilaahay in laga xishoodo ilaahay loo noqdaa la rabaa markii dhib noocaan oo kala timaadana in garabka la isu dabciyaa la rabaa annagu waxa keliya oo kari karno waxa waa inaan soo booqanno inaan u nimaadno inaan idinla wadaagno laakiin waxtar ma haysano walaalayaal hodan way dhiban tahay hodan aad iyo aad bay u dhiban tahay hodan faarax axmed aad iyo aad bay u dhiban tahay way niyad xun tahay way calool xun tahay waxaan danaynayaa waxaan si xushmad idinkaga codsanayaa inaad videogan la wadaagtaan walaalaha soomaaliyeed ee kale oo bayjajkiina ku xiran amaad saaxiibka la tihiin si at least wax yar oo falcelin aan uga helno sheer garaynta videogana sheer garaynaysa loogu qareemiyo qof islaam oo sidaan u dhiban iyada laftigeeda walaal sadaqiya khayra iyadaa wanaaga marka walaalayaal waxaan idinka rajaynaynaa inaad videoga asxaabtiina la wadaagtaan sidoo kale waxaan qof walba oo soomaaliya si xushmad looga dalbanayaa inuu walaasheen garabka u dabciyo inuu walaasheen u naxariisto inuu walaasheen la xanuunsado inuu walaasheen dhaqaalo wuxuu ku contribute garayn karo uu sameeyo sida ugu dhaqsaha badan telefoonkeedu waa 25 eber 36 24 22 25 eber 736 24 22 25290 736 2422 walaalayaal waxaan si xushmad leh magaceeda ku qoran numberka magaceeda ku qoran waxa ku qoran walaal hodan faarax axmed hodan faarax axmed ayaa ku qoran hodan faarax axmed ayaa ku qoran sakariyare hooyadiis weeye hodan faarax axmed akoonka isaga ay shaashada idinkaga muuqda 29 eber 736 24 walaalayaalow waxaan si xushmad leh walaaltinimo iyo islaamnimo iyo ehelnimo idinkaga dalbaynaa inaad nala xanuunsataan inaad nala dareentaan waxaan maanta aragnay oo markhaatiga ka nahay seexiyo wax yar seex waxaanu maantay markhaatiga ka noqonnay oo idinla aragnay oo halkaa u fadhino u nimid min seexiyo rabaa ayaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaad idinkuna markhaati nagala noqotaan oo aad haddii aan la yidhaha garabka u dabcisaan inaad waxa weeyaan haddaad garow joogtaanna soo booqataan oo wax allaali waxaad u heli kartaan mir lugihiisa waad ujeedaan tabartiisa oo dhan waa dhammaatay nacam qof nutritionkii oo dhan ka dhammaadayo jirkiisa oo dhan qayilan yahayo qallalan yahayo xaaladiisa aad arkaysaan weye kushinkaasaa surka ugu jira iyo barkimahaas waxaa saacad walba iyo xilli walba waa la rogrogayaa qofka noocaasa oo sanad ka hor hanka lahaa oo himilada lahaa oo inuu wax noqdo rabay ya waxaa loo baahan yahay inaynu at least wax yar oo naxariis oo islaamnimo aan ku celino ya xasuus buu leeyahay markaa sanadka horteeda wuu oynaya ma garatay waxa weeye marka la xasuusiyo la dareensiiyo sanad ka hor iyo xaaladiisii wuu ooyayaa walaalayaal marka baasha ay soo dhiib waxa weeye waxaan aad iyo aad u dalbanayaa muxuu ahaye tolo walaalayaal inaad haddii alla ka raalli noqdo aad walaalkeen garabka u dabcisaan aad walaalkeen la soo xidhiirtaan aad walaalkeen wax soo tartaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanan ku noqon kuwii visitkiisa ama soo booqashadan soo booqanay ku ceebooba ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan nagu khasaarin kulankan isaga ah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu ninkaas bedel khayr qaba ugu bedelo ilaahay waxaan uga rajaynaa inuu caafimaad sareexaa siiyo ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu noloshiisi iyo hankiisi himiladiisu soo celiyo wiilkeennu wuxuu la mid yahay 200,000 oo wiil oo Soomaaliyeed oo han leh oo himilo leh oo u socda inay ama waxa weeyaan waxbarashadooda meel fiican ka gaaraan wadankan liid gareeyaan magsuum noqonayso hogaamiyaasha berrito noqdaan marka sakariye maaha inaynu ka fiicannahay maaha inaan ka dhalasho wanaagsannahay maaha inaan ilaahay uga dhowrahay waxa weeye waa cibro weeye waxaan isaga lagu samaynayo waa cibro inaynu aragno inaan ku qoshuucno inaan ilaahay uu noqonaan rabaa laakiin aniga xabiib baanahay waa caafimaad qabaa inaan ku faro caafimaadkayga laba rabo inaan aniga waa caafimaad qabaa inaan ilaahay ugu mahadceliyo caafimaadka allay siiyey maantay sakariyad aan la xanuunsadaa layga rabaa walaalayaal waan noolnahay meel fiican baan degannahay waalidkeen baan la joognaa inaan nolol fiican haysano baabuur wadano si fiican u labisannahay baa laga yaabaa laakiin isagoo halkaasuu yaalaa 12 bilood marka ilaahay daacaddiis maaha
inaan waxaa la rabaa ilaahay ka noqono ilaahay inaan u noqonaa la rabaa inaan ilaahay ka baqnaa la rabaa inaan ilaahay hortiisa ninka wax ku sadaqaysanaa la rabaa haddaa ay maqlaysaan daliya dibad waxaan si xushmad laydinkaga codsanaya waxaan si walaaltinimada la idin weydiisanaya inaad walaalkeen soo garab gashaan inaad jaaliyadu dibadda isu tagaan inaan ilmaha yarkaa sidaa u dhaanno waa ka kicin karnaa meesha waa daweyn karnaa boqolaal baan daweynay ayaantii dhaweyd oon qardho joognay 14 qof baan muqdisho u dirnay qofka ugu yar 12,000 oo dollar baa aruurinay soo wixii garateen ma aha waxaa dadkii aan u qareebayay oo anigu waxaan maanta xusi karaa 2 qof kaliya oo qofna muqdisho ku dhintay wiilkii yarka ahaa oo indhaha la dhagaha la oo kaliya kaadida gudaha ugu socotay oo muqdisho ku dhintay iyo adeer muumin oo qardha ku dhintay intii kale dadkii ilaahay caafimaad uu siiyey xamar baa la geeyey waa la qalay dawooyin fiican bay heleen waa soo wada noqdeen iyaga wadaagsan kuwii kale oo qardhaanu ku waxaynana ilaahay caafimaad uu siiyey ducada islaamku waxtarkeeda ilaa dhaqaalaha kaliya maaha maca qofka islaamka in loo soo duceeyo waxa weeyna qofku waxa laga yaabaa in ilaahay markaa ku waafajiyo qofka ducaynaysid marka walaalayaal waxa weeye waxyaabo badan xanuun aragnay wadankeena dadku aad bay u tabaalaysan yihiin dadku dhaqaale ma wada haystaan haddaad dibad joogtaan oo dawlado waaweyn la joogtaan oo dhakhaatiir heli kartaan walaalayaal dadkaan ma haystaan dhakhtarka visitka $5 oo cusbitaalada inaysan heli karin baa suurtagala waxaa laga rabaa marka innaga baa waxaa laga rabaa inaynu kaalintaa buuxino ma aqaan anigu sakariye weligay ma arag laakiin waxa waaye fartuun baa maamo magaalada degan oo dadka muxsiniinta ka mid ah oo gabaraan asxaab nahay dhashay ay la soo xiriirtay noola sheegtay dhibta sakariye kadibna waa ka aamusi weynay sidaasaan u dhimid sidaasaan u soo booqanay sidaasaan idinla wadaagaynaa waxaan si walaaltinimo leh idinkaga codsanaynaa waxaan si islaamnimo ku jirto idin weydiisanaynaa in aynan visitkan ama waxa weeyaan kulankan booqashadan aan ugu nimid sakariye inaan ilaahay nagu ceebayn hodan faara axmed wataas waa hooyada dhashay wiilka 25259 eber 736 2 numberkaasay wadataa walaalayaal dadkiina Soomaaliya jooga sidoo kale dadka dibadaha joogaahi si toos ah ayay lacagaha xawaaladaha ugu soo diri karaan walaalayaal waxaan si xushmad idinkaga codsanayaa dad badan oo muxsiniin oo khayr badan baan aqaanaa magaaladeedii anigu aan ka imid hometown-kayga Minneapolis degan dad Ohio degan kuwa Boston degan kuwa Toronto degan dadka gabdhaha khayrka badan ee UK oo aan marnaba aan nooga harin hawlaha noocaana kuwa Denmark degan kuwa Holland degan kuwa Sweden degan kuwa Finland degan dadka Asia degan kuwa Australia jooga dadka Africa geesa qaybaheeda kala jooga jaaliyada Zambia ee khayrka badan oo mar walba u damqada dadkooda yeelkooda kuwa Soomaaliya jooga dadka caasimada jooga kuwa maamul goboleedyada jooga ama Galmudug ama Koonfur Galbeed ama Hirshabeelle ama gobolka Banaadirba dadka reer Puntland khayrka badan ee 9 gobol ee baaxadda leh ku kala fidsan qof walba waxaan si xushmad looga codsanaynaa inay akoonkaas wuxuun ku soo ridaan lacagtaasi waxay noqoto markay isgaarto khayrkeeda waa idin la wadaagaynaa intaad soo direen kadibna haddii alla ka raali noqdo dhaqaale fiican u helno waxaad arki doontaan anagoo fiisa u raadinay iyo anagoo ninka insha Allah meeshii ilaahay la garto la gaarna waa garab galaynaa hooyadiis waana la soconaynaa anagu walaalayaal wadankan joognaa waxaan anagu culayskeeda qaadanay inaan soo booqano dadkeena tabaalaysan laakiin waxtarka waxa laga rabaa dadka khayrka badan ee waxaysta ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo muxuu ahaayay haddii alla ku roon yahay iyo dadka dibadda joogta xukuumadda Puntland oo golaha wasiirada iyo baarlamaankaba waxaan ku leeyahay saaxiibaad iyo aad fara badan u malayn mayo qof Puntland joogo siyaasad ku jiro isdiidana inuu jiro qof walba halka iga maqlay waxaan si xushmad looga codsanayaa in uu haddii uu garawa joogana sakariye soo booqdo haddii kale toolano akoonka lacag soo rido khayr baan ku aqaanaa madaxda iyo maamulka Puntland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha wakiilada iyo baarlamaanka wasiirada agaasimayaasha qof walba oo xukuumadda Puntland u shaqeeya khayr baan ku aqaan sadaqay baxsadaan dad wanaagsan weeye dad ehel weeye dad rixina weeye dad naxariis badan weeye waxaan si xushmad idinkaga codsanayaa waxaan si public idin weydiisanayaa waa awoodnaa haddaynu reer Puntland ama reer Garowe isku dayno inaan sakariye dhakhtar u dirno inaan guriga la yimaado wiilka yarka la soo booqdo gurigooda wuxuu ka soo horjeedaa dhakhtarka Sixa iyo World Vision
waa loo imaan karaa telefoonkiina wakaas wixii dhaqaale aad u heshaana walaalayaal waxaan idinka dalbaynaa maamada telefoonkeeda qofkii aan imaan karin kusoo diro qofkii kalena inuu soo booqdo sharaf bay noo tahay magac bay noo tahay madaxda iyo mas-uuliyiinta sarsare dowladdu inay soo booqdaan qof sidan oo kale ah oo dhulyaala sharaf bay noo tahay inaan sidaa yeelno wanaag bay noo tahay ilaahayna waa ugu dhawaanaya subxaana wa tacaala ninka maanta socda oo dhaqaala haysta oo meel fiican seexda oo staafku ilaalinayo waxaad ogaataa in ilaahay koon ku tasarrufo oo positionka sakariye uu ku fariisan karo marka cibra inoo tahay ilaahayna waa ugu noqonaynaa oo alla ka cabsi baa ku jira tan iyo cibro iyo ilaahow subxaana qaadirow waxaan kaa magan galay sidaa walaalkay u gashay inaadan yeelin moogtahay silc iyo rafaad way uu ooyayaa ninkan maskaxdiisu waa taan walaalayaal marka wax yar oo xanuuna laga sheego marka xaaladiisa laga hadlo isla markiiba uu ooyaya nacam hadalkii ma soo celin karo laakiin uu ooyaya wuxuu ku jawaabayaa oohin qofka noocaasa marka qofka noocaasa walaalayaal waxaa la rabaa inaynaan nicin inaynaan dayicin inaynaan dulmin inaynaan waxa weeyaan inkirin xaaladda ku sugayaan walaalkeen waxaan idinka rajaynayaa haddii alla ka raali noqdo annagu kollay booqashada oo ku badin doonaa marba xaaladiisu siday tahay waa idinla soo wadaagi doonaa waxaan si xushmad la idinkaga codsanayaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inaad wiilkaa yarkaa dhaqaale degdega la soo gaartaan dal iyo dibad soomaaliya qofka jooga haddaa hormuud haysatid maca halkan waa kusoo diri kartaa lacag 25290 waxaan u malaynayaa markaa hormuud numbera kasoo diraysa ama number telesoma ama waqooyiga soomaaliya ama koonfurta soomaaliya waxaa ka hormarinaysaa 090-736-2422 intaasaa laga rabaa qofka telephone haysta telesom ama haysta hormuud wuxuu lacagta kusoo diri karaa wuxuu kusoo qorayaa eber 9 eber buu ka hormarinaya eber 9 eber 736 2422 dadka banaankana waxa weeyaan toos bay ugu soo diri karaan xawaalada halka dollar labada saddexda afarka khayr iyo barako ayay idiin noqonaysaa ilaahayna waxaan ku rajaynayaa guryihiina iyo caruurihiina inuu idinkugu badbaadiyo waxa aad ku sadaqaysataan walaalkeen noocaana iyo dadka la mid ah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bedel qaar qaba iyo miisaanka xasanaadka aakhira inuu idiin saaro annagu intaasuun baan awoodnaa videoga sheer gareynaya walaalayaal meelaad joogtaanba sharaf iyo karaamo dushiina ha ahaato dad isu naxariisto khayr badan baynu nahay soomaalidu waa dad wanaagsan soomaalidu dad aad u fiican weeye wani kamis rixinka iyo naxariista iyo aakhirada iyo marka la isxasuusinayo markay dhib timaado wixii siyaasad iyo hawlo kale waa wax kale weeye inagu shaqo kuma liintaas laakiin khayrka soomaalidu waa ku fiican tahay deegaan walba deegaanka kale waa ka khayr badan yahay dad aad u fiican baynu nahay dad ishaystaynu nahay waynu isu damqanaa waynu isu naxariisanaa waadna ogtihiin waxaba yaraatee beer yara oo inoo dhexeeya ma jiraan magaalo walba oo soomaaliya waa magaaladii kale deegaankan waa isku dad waa hal qabiiladaas soomaali baa la yidhaahdaa diin ahaanna islaam bay haystaan dad macaan weeye af soomaali bay ku wada hadlaan aan isu naxariisanno waan rajaynaynaa inaan telefoonkan ku aragno telefoonno wad badan oo telesooma waqooyiga soomaaliya ka yimid ama telefoonno badan oo hormuud ah oo koonfurta soomaaliya ka yimid sidoo kale reer puntland mas-uuliyad dheeriyaa saaran especially dadka garowga jooga waxaan walaalayaal idinka rabaa intaad isu tagtaan ganacsiga dadka haysta dhalinyarada shaqaalaha ee wasaaradaha u shaqaysa kuwa private businesska haysta intay isu tagaan dadka reer garoowe mas-uuliyad gooniya ayaa ka saaran sakariyara walaalayaal magaaladii baad joogtaan ilaahay subxaana qaadiran waa idin weydiinaya markhaati baad ka noqonaysa annaguna haddaa idinku oogeyna ninkaasi garow wuu joogaa waa dhiban yahay waa silicsan yahay sanad buu halkaa yaalaa ma istaahilo inaynu inagu nolol fiican haysano guryo fiican deganahay baabuur wadano xaaladiisu ay sidaa tahay ood ujeedaan korkiisa iyo maqaarkiisa inuu dhammaaday idinkama yeelayno walaalayaal umaanaan imaan ama waxmaanaan tarin xaaladiisu aad bay cajiib u tahay jirkiisoo dhan waa saas waa dhacayaa waxa weeyaan wax awooda uu leeyahay male lug iyo gacan iyo madaxa iyo ma garanaysa jas waxaad moodaa maskixiyan inay joogaan oo markaad wax xasuusisid ama ka hadashid wuu ilmaynaya uu wooyaya nacam waxa weeyaan ma istaahilo weeye waxaan xabiib oo kale aan ahaan lahaa weye wuu hadlayaa wuu risbaan garaynaya xabiib oo kale aan ahaan lahaa waa hadli lahaa dadkaan u tegi lahaa waxbaan qabsan lahaa buu leeyahay laakiin hoos buu ka weeyaa walaalayaal marka innaguna inaynaan intaas qaadan inayna intaa u qushuucin inayna intaa yeelin ilaahay daacadiis maaha xaasha lilah aan isku noqonaan sida isu dhaanno
qof walbo Soomaaliya walaalkeen u soo damqo qof walbo walaalkeen u soo naxariiso haddaad waxba heli karin hooyooyinka garowe jooga waxaan ka dalbaya haddaad waxba heli karin fadlan u imo walaal hodan oo walaalayaal la jooga oo saacad la fariista oo wiilkan la haya ilaa ubad baad leediin isagoo kale fiiri bal fiiri ilaan ku dhashay wax walba wuu la socdaa wax walba wuu la socdaa hooyooyinka kale oo ubad kale oo ubadkooda caafimaadka qabaan oo jaamacadaha u dhigtaan oo iskuulka u dhigtaan oo u shaqeeyaan oo biilal ka bixiyaan oo garowe jooga waxaa laga rabaa inay hooyo hodan soo booqdaan hooyo hodan inay soo booqdaan baa laga rabaa inay u yimaadaan walaal ku qanac Allah ku gartay waa fiicnaanaysaa lacag waa helaynaa wiilka waa dhoofinaynaa waa diraynaa waa la tacaalayna yiraahdaan baa la rabaa inay u yimaadaan baa la rabaa haddii kale ood gurigaaga ku ekaatid waxaad raalli ka tahay waxa weeyaan sakariino sida ahaado hal midna ogow caafimaadka carruurtaada iyo adiga waxa weeyaan garantii ma haysatid Allah subxaanahu wa tacaala waa inagu eegaya waa inagu imtixaamaya waana lagu fiirinaya haddaa laakiin jeejees iyo kibir guriga banaan ka martid oodan u imaanin walaalayaal haddee dhibteeda yalhaanaysaa wey Allah subxaanahu wa tacaala dulmiga ma jecla islaam baynu nahay isu naxariisano garabkiisu dabcino sida isu dhaanno anigu wax kaloo la wada bala xabiibahan anigu wadanka ka shaqeynaya ma joogo haddana ma shaqeeyo waxaan awoodaa kaliya inaan soo booqdo inaan u imaado inaan idhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala walaal sidaan kuu qadaray walaal sidaan ku samay iyo sidoo kale inaan video ka duubo idinka idin la wadaago marka walaalayaalow waxa weeyaan inaan ilaahay la ceebayn walaalkeen sida u soo dhaamo walaalkeen sida u soo dhaamo walaalkeena meesha ka kicino walaalkeena dhakhtar la raadino ma eedeebayno markaas haddii ninka inta la qaado dhakhtar uu helo ma eedoobayno wiilka yarkaan idin sheegayo qarno waa la igu yeereen oo qarno dhex maraya gurigiisaan booqday lacag baan ugeeyay maamadu iima warramin xaaladiis waxba iima sheegin maalin dambe anoo qarno hawl kale ka shaqaynaya wiilo dhalinyaro ii yimaadeen waxay dheheen ilmo yar baa cusbitaal ku jira wiilka yarka cusbitaalka uu jegay dhakhtarkii baa wuxuu ii sheegay inuu wax dhaqaalaana loo hayn kaadiduna gudaha ugu noqoto wuu dhagalayahay walaalaya wuunay dhalaa ilaa ugu dharshay kaadida xanuunkeeda aad aragteen ilmaha yarkaa gudaha ugu noqonaysa ka warrabo markii lacag waxaan siinay baan umalaynaya $200 maalinkii hore lacag 300 aan siiyey maalinkii dambena cusbitaalka 200 kadibna guriga inaan ugu tagaan codsaday gurigii baan ugu tagay lacag baan u rays garaynay anigaa soo qaaday gaalgacayaan geeyey gaalgacayaan baabuur uga gireeyey dayuurad ma jirin gaari Land Cruiser Puntland Leyla Calawi baa la dhahaa baan waxaan uga kireeyey koonfurta gaalkacyood gaarigaasaa dhulka lala maray xeebtaan la maray muqdishaa la geeyey markii muqdisho ay tageen maamad iyo wiilkii way la soo hadleen qoladii cusbitaalka Digfeer baan la hadlay wiilkii yarka ahaa waa la qaabilay dhiigagii waxbay ka qaadeen qol bay geeyeen kadibna waxay dhaheen xaaladiisu shaxshax maaha markay ka baqeen way karantiileen cusbitaal kale u durubiyeen oo Madiina ku yaaan atin inuu martiini ahaa anyway walaalkay waxay dhaheen covid baa ku dhacay bay dhaheen ilmihii yarka ahaa covid baa ku dhacay waa karantiileen waqti kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala oofsaday anagu waa dadaalay anagu hooyadii xanuunkii guri dad aad u tabaryar oo qardad degan oo noloshooda maarayn karin bay ahaayeen markaan la tacaalay wiil ka soo qaadno dhulka soo marino ilaahay gaalkacyo geyno gaalkacyo ka qaadno baabuur khaas ah kaligiis saarno muqdisho geynay hadda intii aan kari karnay intaas ahayd lacag $12,000 maamada u rays garaynay waana u tacsiyeynay aaskii markii la qaaday ambalaaskii wuxuu waa soo duubay waa la wadaagay walaalihii qayrka badnaa markii hore dhaqaalaha soo diray marka walaal waxa uu qofka haddaad la tacaashid oo ilaahay oofsado kuma eedooysanid laakiin waxa waaye hadduu sidaas dayacaas ku dhinto waxa waaye hadda kulligeen baa markhaatiga noqonayna wey waa ka xumahay inaana waxba tari karin maanta sidaa idiin sheegay anigu wadanka ka shaqaynayay oo ninka fiican ka ah ma joogo Soomaaliya jooga mana shaqeeya hadda laakiin waxaa kala ina idin la wadaagay Sakariya xanuunsiga idin baahaya Soomaaliya meel aad joogtaan ba walaalayaal walaalkeen soo caawiya walaalkeen sida u dhaano walaalkeen dhakhtar geeyo telefoonka isticmaala meesha ku qoran
hooyadiis wataa gabadha yartaa baa dhashay hodan faarax axmed baa la yidhaahdaa telefoonka aad lacagta usoo diraysaan iyadaa iska leh wiilka iyadaa dhashay gabadha oo walaasheed dad hantiya dhaqaale ay isku filan haysto oo wiilkooda dabiibi kara maaha sidaasaan u jeclahaysana inaan soomaalida mas-uuliyiinta ee khayrka badan la wadaagno walaalayaal aan isu naxariisano walaalayaal aan garabka isu daceyno aan walaasheen sida ugu dhaqsaa badan ugu soo qareenno intaasaan idinkaga baxayaa dadka garoowe mar labaad waxaan ku celinayaa qof walba oo mas-uuloo garoowe joogow qaan bay kugu taha fariintaydu inaa ilmaha yarkaa u timaadad iskuul buu dhameeyey jaamacad walaalayaal iskuul buu dhameeyey kadibna jaamacad buu dhameeyey ilaahu subxaan qaadiro hanoo qaban rabbiyow hanoo qaban waxba kama hakranayno waxba kama xaasidayno waa garab fadhinaa waa u damqanaynaa walaalkaynu yahaan aaminsanahay xaashaa lilah idinkana waxaan rajaynaynaa kurbadaa naga faydaan oo dhaqaala sida ugu dhaqsaa badan walaal usoo siisaan dal iyo dibad walaalayaal xawaaladaha isticmaashaan taajka isticmaashaan numberka isagaana wixii loo kaloo dhan ay dhaqaalaha kusoo aruuriyaan idinkoo mahadsan allah idin barakeeya aan idin leenahay walaalayaal videoga mar labaad sheer gareeya la wadaaga asxaabtiina walaalayaal inboxka isugu dira walaal hodan wax aad dhahaysa dadkaas muslimiinta oo muxsiniinta oo liveka ku daawanaya 70 kun oo qof baa ku jirta meeshaas maxaad leedahay hodan muddo hal sano ayuu iga xanuunsanaa oo dhulka yaalay oo intaa la rafanayo oo aan ku deemoogay cid ila garab gashayna male aan gabdhaha walaalahay ahayn wiilkeen markuu jaamacadda dhimeeyay ayaa xanuunkan asiibay bisha afaraad u asiibay bisha tobnaadna wuu soo dhacay ilaa haddana meeshuu yaalaa waxaan ka codsanayaa walaalahay muslimiinta inay isoo caawiyaan waxay idu soo caawin karaan oo awoodaan inay idu soo caawiyaan walaalahay soomaalida muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan wiilkeyga wiil 25 jira markii aan filayo inuu ii shaqeeyo inuu meel ka soo baxo ayay qadarta ilaah ku dhacday qadarta ilaah ku imaatay hooyo walbo haysato wiil 25 jira iyo aabbo walbo haysto waa og yahay in dhibaatada ay leedahay marka insha Allah waxaan ka codsanayaa inay idu soo caawiyaan inay soo garab galaan cid ila garab qabtayna male oo hadda ilaahay ii soo qasbay dadkan ii yimid gabdhaha wadaadada ah wadaadka xabiib ilaahay ii soo qasbay ilaahay ii keenay ayaan ku mahadinayaa ilaaha mahadaas iska marka walaalaha Soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay la garab qabtaan intuu meel alaali meesha caafimaadkiisa ku jiro inay la geeyaan ayaan ka codsanayaa intaas ayaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta numberka telefoonka aad aragtaan waa ka halkaas ku qoran waxaa hooyadaan aan ku noolnahay waa hooya aabbahay lahaa aabbahay iska lahaa meeshaasaan ku noolaa aabbahay la karsada male 10 sano ka hor iskuulkeen dambeysay carruurteeda anaa karsan jiray anaa u shaqaysan jiray walaalahay anigaa meeshaan ku wada nool oo isla joogna ayakaana igu caawinaya wixii caawinaada marka saasna way jirtaa lambarkeyga waxaa waaye eber 9 eber 7 36 24 24 dadka dibadda joogan waxay ka horumarinayaan eber 25 labo 9 eber ayay ka horumarinayaan lambarkeygana waa intaas waxaan ku qoran Hodan Faarax Axmed magaceedaan ku qoran Hodan Faarax Axmed kuna بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومدى الصوماليين ميل كستا اي جوجتا waxaan ku codsanaynaa inay share gareeyaan inay u soo duceeyaan waxsiiskana waxa ka sii wanaagsan ducada qof walba markuu salaada Ilaahay tukado waxaan ka baryaynaa inuu u soo duceeyo wiilkan walaalkan Sakariye oo nin dhalinyaro ah oo mustaqbal iyo hammi ka laha adduunka xanuunkaana waxaan ku rajaynaynaa Ilaahay inuu uga dhigo cimri dheeri iyo caafimaad Ilaahayna inuu ugu dambi dhaafo hooyadana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha kula qabto ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan inay soo caawiyaan numberka aad weydiinaysaan waa ka halka ku qoran waa 2529 eber 7362422 waxaana ku qoran Hodan Faarax Axmed oo ah hooyada dhashay Sakariye waxaana idin leenahay u soo duceeya qofkii aan wax awoodin iyo qofkii wax awoodaba mar walbaba inaad u soo hormarisaan ducada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu aqbalo baan rajaynaynaa hadduu alla idmo waxaan leenahay walaalkan Sakariye Ilaahay ha caafiyo caafimaadkana Ilaahay ba haya wax kasta oo inagu dhacana waxa weeyaan waa wax
qadar uu ilaahay keeno weeye ducada ayaa muhiim ah ha loo soo duceeyo soomaali maxamedna waxaan leenahay walaalkeen soo garab qabta sidaad aragtaan dareenkiisa waa uu joogaa sakariya mar allaali markii laga sheekeeya taariikhdiisa ama ay hooyadiisa hadashaba waa uu ka qiiroonayaa waadna arkayseen waana waxaad ujeedaan oo xaqiiq ah waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad sheergaraysaan una soo ducaysaan ducadana inayna ka hilmaamin ayaan ilaahay ka baryanaa ducada aad usoo ducaysaanna inuu ilaahay u aqbalo oo jawaab deg deg ah ducadaas uu ilaahay uga soo siiyo ilaahay isaga qafuuru raxiim ah waana mahadsantihiin allaha caafiya baan leenahay sakariya ilaahay cimri dheer iyo caafimaad taamanan allaha ku siiyo inta maxay ahayd tooya haysana ilaahay samir iyo iimaan idinkana maxay ahayd tooya ha idin siiyo oo si wanaagsan oo aad rabtaan qalbigiina iyo faraxiinaba in ilaahay inooga dhigaan allah subxaana watacaala ka baryanaa halkaas waxaa fadhida madaxiisa waa habarartiis hooyadiis la dhalatay sakariya oo ah Faadumo Faarax sakariya waad ujeedaan mar allaali markii taariikhdiisa ama noloshiisa laga sheekeeyo dareen baa ku jira waana uu oynayaa marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha caafiyo isagaana caafimaad haya hana lasoo garab qabto adduunkana waxa la isugu yahay aakhira cid wax isugu aan ma jirto lacagta aanu bixinaynana waxa weeyaan qofku marka ay kaa baxdo adiga ayay wax ku taraysaa laakiin marka aad bixinaysid maxay tahay adiga jeebkaaga macno uma leh laakiin qofka walaalka oo xanuunsan macnay u leedahay waxaan leenahay qof walba oo soo sadaqaystana ilaahay subxaana watacaala ha irid khayr qaba ha inoogu furo sakariyana ducada ha loo soo badiyo ayaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha caafiyo hooyadana ilaahay ha la garab galo ducadana ha loo badiyo baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين تميلوا جوجتان وين سلامينا سلام كدب waxaan ku codsanaynaa annaga oo ilmo Faarax Axmed Qurana sakariya habeertiis baan hay Faadumo Faarax baaridaa walaalayaal waxaan ku codsanaynaa insha Allah dal iyo dibadba meelay joogaan dadka muslimiinta inay nagu caawiyaan sakariya maxamuud intaas aan ku codsanaynaa walaalayaal jazaakallah khayr ilaahay khayr ha siiyo xabiibna ilaahay khayr ha siiyo sunna ugu dadaaliyo allah ugu dadaalo sheekh inoo yimidna ilaahay khayr ha siiyo gabdhaha annaga muslimiinta oo annagoo iska dhibban noo imaadayo ayagaba sheekadan oo dhan nagu dhaliya annagoo iska aamusan daris ahna wax u sheegan allah ma ooyay cid kale ahna wax u sheegan marka walaalayaal waxaan ku codsanaynaa muslimiinta meel walba oo aad joogtaan inaan soo caawisaan insha allah intaasaa codsiga iyaga ah ilaahay khayr ha siiyo walaalayaal ilaahay idin xifdiyo intaas aan ku codsanaynaa walaalaha annaga muslimiinta ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu